lahayd Ismaaciilo Puntland waxay baahida u qabto horumaraa laga gaari adiga lahaa ma noo sheegaysa caafimaadka adoo ajnabi naga ah caafimaadka waxa naga listen taas waa usoo jiiroonina waxa waaye kaadi horumarinta shaqo la'aanta dhalinyarada oo jaamacadaha ka soo baxay iyo Puntland bataati in la abuuray fiiri wax kala fiiri laakiin boobaha nafsheega mawduuca laga hadlayo malaha ma garanayeen shakuro waxyaabaha noo keenaaba taas waxa kale oo soo kabanaya waxa taa fiiri waxa dibadhaca lagu riday waxayba tahay kamid ahaanshaha Soomaaliya okay Puntland hadda Somaliland from 90 ilaa hadda taanay gooni u istaagan tahay maxaa u hagaagi hadda dhowr qof ku soo celceliyay maya dhowr qof ku soo celceliyay waxa u hagaagi kaliya in calanka ay ku xirtaan inta gacanta that's only fiiri anaga maya aniga ma dhihin maya idinkaa ku celcelinahay Soomaha idinkaa ku celcelinahay marka focuska Puntland haddii aad dadkii wax soo bartay Puntland haddaad tihiin focuska tariinka meel fiican saara adiga waxaa tahay ka baxay cidina wax weydiin oo sameynaya prescription sameynaya adiga haddaan reer Puntland tahay oodan aaminsanayn inay Puntland kala go'do waa kala doodeynaa haddaa aaminsan tahay inay Soomaaliya ka sii mid noqoto waa kala doodeynaa haddaa aaminsan tahay inaad go'did waa kusoo dhaweynaynaa laakiin mawduuca meesha ku qoran mawduucaan ahayn geeda hal abuuri iyo dhaqaalaha la sameeyay iyo Puntland coin oo mawduuca wareysi nina wareysinaysa Ismaaciilo may waa soo dhaafay hadda wax kala galnay fiiri ikaadi salaadaha maxaa lagu salaad fiiri salaad marka la tukado salaada loo qasdi Soomaha wax kale ma loo qasdi mayde laakiin salaada maxaa lagu soo gabagabeeyaa tasbiix mawduuc kasto annaga ka hadalna habeen dan bataatiga hadaan ka hadlay Puntland go'itaankeeda ku dambeeyay mawduuc ma waayo okay waxaan dhageysana hoosaan fariisana laakiin waxaan ii sheegaa focuska Puntland ma cryptocurrency bay currency-geeda ka dhiganaysaa mawaadiicaas waa inuu nala galo mawaadiicaas waa kala duwan karnaa maalinteeda inaan Puntland coin samayno iyo inaan Puntland shilling soo saarno oo lacag cusub ah trustime marka la sameynayaan ada arrinta advisor-ka marka arrimahaas waa lagu yeerayaa maya waa hoosa u degaya waa dhegeysanaya laakiin maya waan dhegeysanaya maya korma jooga waan dhegeysanaya waxa ka hadalnay Puntland xataa gudaheeda meel lama gaari karto Puntland inta aniga xoog ku gaarsiin karnay iyo inaan wax ku qabanno waa ka qabanay meel hadda ceel ka qodnayn ma jirto tuulo aan ka soo jeedin aanan ceel ka qodin ma jirto 10 ceel 20 ceel iskuulada waxbarashada waxaas oo dhan waxa ku gaarsiinay isku tashi laakiin si dawladii haykalkii sovereignty caalamiga ahayd intay naga maqan tahay xataa wax badan mise kheyraadkeena la soo bixlaana badeena maanta waxa kala anahay inaan kheyraadkeeda go'aan ka gaarno anaga soo xiranno marka inta Soomaaliyan waxa soo dhan kaaga maqan tahay shakuro taas ogsoonow maanta karabtadaada inta gasho aad beachka waxa ku leeyahay guri weyn ka dhisato aad iska baashaari lahayd xagga online ka soo gali lahayd Soomaaliya war Mustafa iyo nik saaxiibkay waa war Ismaaciil Diiriya soo dhawo ustaad anaa ku soo qaaday ku soo ustaad soo dhawo ustaad maanta aan kula albaabka iga furtay fiiri midda kaleeto maanta fiiri kaada horta الناس يدخلون في دعوتنا أفواجا ما أنتوا حنوصل قلي استاذ وين سو حفانتما هذه حتى نجمع قن محمد علي وبقى هذا الكيس محمد علي والله سكل يلا أقصله محمد علي ما أنت ومالي وين ما أنت دعوتي وحسوق قلي أستاذ محمد علي الناس يدخلون في دعوتنا أفواجا مرضو هذه هذا وكسوجينا هيانو دهانون بكرة ما أنتوا حسوق السحاب وين بسوق عليه محمد ابن علي مركز هجامياشي ووينا بسوق إسماعيلو أنا ماشي أحبط لا بنتلان ما كبدلنا مركز ما يمحو بدلنا بنتلان أبى الله صومالي واحد كجير ملاه ما عوق قرحوا فيري كلي وحنون من إيك نجحتورو لجيسو نجحتورو بابا مقع تاريخي يسألوا بدلا نجحتورو وحنون من كلي مقع العقب بدنا وقدنا إيك هذا ذيك وحنون من كلي waxaa noo dhiman kaliya farti inaan dib u soo noolayno oo ahayd maxay ahayd xirsi magan fartiisi maya maha farti Cusmaaniga moogta laakiin hal problema jira laakiin qoliyaha bargiri la yiraahdo waxaan sameynaba
way naga daba sameynayna sirteena si u ogaadaan ayaan soo dhaweynaa ayaan Already. It's so unfortunate. It's so unfortunate maanta inaan ka hadlayno Puntland iyo dowlad iyo intii waraaqahana ugu qornaydna madaafiic lagu garaacayo aniga niyo waxaan la sheekadan haddii sababta waa keentaba in aaminsanahay laakiin madaafiic dib lagu inoogu gaaro dhiga haddaa ka go'i lahayd soomaaliya ma la garaacin dadkaaga that is the maya problem adiga waxa maya khaladka waxaan ku samaynay arms embargo iyo waxaan adduunka ka socona aan abaaygaraynaynay dadka intay soo gaadanayeen bahalahan aan caadiga ahayn la ridaayo taas Germany runtaa lagu way sameeyo runtaa way abtiyo hadda anigu waxaan ku annaga leeyahay xamara ku something that mashquulsaneen that's the see problem sax maya or there is a way la jibshaana baran see aniga hadda waxaa amisanniyo meesha aniga madaxweyne iga dhiga igu soo celiya Ismaaciil adaa erga ku diraya nimanka taraha waa is haystaan ma naga jaraysaa soomaaliya ballan baa kuu qaaday inaan ergaa idin geeyo waxaan ka dhigaa may mataqaanaa may fiiri meeshii ma idin fahmi fiiri su-aasheedu waa very clear soomaaliya ma naga jaraysaa waxa waa process aniga process aan marno may process intaan ma soo ka hadlayo istaago ii fahan fiiri fahan fiiri jawaab fiiri hayaano haddaan noo jawaab ii kaadi horta hadalkayga dhegaysatee jidad dahaba afka haddaan noo lagu guraa samaynaysid Ismaaciil ma ma rabno ogtahay dayax gacmeed afka haddaad diraysid ma rabno soomaaliya ma naga jaray haa ma samay haddii dadka shacabka Puntland jooga iyagu ay laakiin waxana waa process Ismaaciil may hadda iskama process aha ba of course laakiin ma rabtaa is that your intention listen ninkaan nin aniga nin attention loo kayga codeeyo fiiri diyaar u ah maaha Ismaaciil oo ninkaan naga dhaaf may cid kale noo raadi cid kale ii kaadi may dhegeysa may adiga waa dhegeysa kaa Ismaaciil tashanaynaa marka sax waay ma aad iyo ayaan waa aad aan ka advice tashanay noogu weyn ee لا xisbigan waay إله mugta إلا fiiri الله الحمد لله فيري may أنا may waxaan rabaa in intaan barwaaqo ku gaarsiiyo barwaaqa you ma make rabno the decision barwaaqa you soomaaliya make ku the gaari decision karnaa nin soomaaliya ku gaajaysan gaari karnaa ma barwaaqa ma decision rabno samayn karaa waaba ma gaajaysan rabno tahay barwaaqa ma rabno soomaaliya ku fiiri gaari karnaa waxaa rabnaa different nation xagee ka gaaraysaa 40 sano taagan tahay sug oo ukaadi ukaadi dab baa lagu geliyey look annaga problemkeena waa kamid ahaanshaha dowlad kale problemkeena dhaqaale ma ahan problemkeena ma ahan waa adi waxaadan kale aqoonin fiiri haddii barwaaqay ku haysteen nimanka la yidhaahdo wadamo badan oo adduunkan markay haysteen yurubiyaanka dib bay uga shalaayeen annaga yurubiyaanka ayaa ka nolol fiicnayd dowladnimadeeda laakiin yurubiyaanka say regales mayna rabin waa iska erini aan levelkaasoo kale iga taagantaha laakiin soomaaliya su'aalaan haddaan ku ku helayo weydiinaa Ismaaciil jannatu sidaan dunya ma kuu rabo fahmo sidaan Haye. kuu fahmo waa gartay inaa naga goysaa rabtaa laakiin intaadan naga goyn ka hor processkaaga wax yar ma iso brief ma isin maya kartaa sidee rabtaa aniga sidee fiiri rabtaa inaad ani u waxaan ka samaysid hadla ii kaadi puntland cadaaladda gudaheeda taala puntland dowlad xumada gudaheeda taala puntland improvementigeeda I am with you along the way laakiin markaan kala harayna waxaa waaye aniga vision baan wataa adiga waxaa ka hadlaysaa mission ana visiona ka hadlaya so ha igu lugooyin mission vision igala hadal my vision is in Soomaaliya iyo Puntland ka goodo is that your vision waxa kale oo dhan waa mission waay marka vision igala hadal is that your vision no yes or that's no not my vision to then be honest with you then my we friend are so departing there no aniga isku aniga wada waan mani ha ma ihi anigu ma very ihi simple I'm very sorry simple aniga Soomaaliya waxa yiraahdo ma rabo laakiin waxaan ku geyn lahaa no 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 hayaal oo runa isku aniga anoo sharaxaysaa maxay xamar ku tahay jiro anoo no xamar ku aniga jiro warkay waa cadyahay ma ogtahay aniga xamar warkay ani waa ugama cadyahay tagoy barwaaqo xumo ugama tagoy ayaa xataa fiiri cadaalad xumo waa sheegoya anigu hadda laakiin danta saxda ka tagaya waxaa waa inaan Puntland ka jiro that's the xaqayga saxda ah Puntland u yaala ismaaciil waxaan ku صراحة gaarsiinaa inaad naftaada ku mashquushid marka hore then no make a no decision no when that sheeka time comes kacaana la dhahaa soo jiiro hay odayaasha kacaanka noo qaar soo laabo noo soo laabo may waa noo soo haye waaye soo xafaantay ma laakiin dimuqraadiyadda waxa ku jirta inaan kala cod may noqon karo reer qof Puntland xitaa halgamay maxaa dimuqraadiyad ka galay juhdi aan ku jiraay حتى waxaa suurtagala inuku qofka maqaayad halgamaya xataa waxyaa lascaanood mandela ma ogtahay mandela xisbiga dagaal u sameeyey mayalka adag wey xisbiga mayalka xisbiga mayalka adag weyna warey mustafa xataa joogo wala aniga I didn't go that far but okay may I'll leave it there may fiiri ka qaada gacan nin warka hadda maqlaaya ma odagii wuxuu dhahay xabad joojidaan sameynaa muu dhahay without a condition ma brother fahmin xagee waayo brother wax yar inaa hadlayaan u maleeyay
Soomaali ma hadlayno miyuudaa ku may jirta Soomaali problemkeeda ma ahan hadda cadaalad darro right now as we speak. Soomaali problemkeeda ma ahan dagaal sokeeye. Soomaali problemkeeda waxaa waaye fahanka ummadda Soomaaliyeed oon isla soconin waayo. Ummadda Soomaaliyeed ninna wuxuu taagan yahay in wax walba loo sameeyo, ninna wuxuu taagan yahay wixiisi inuu samaysto. Okay, marka dadka noocaasa islama jaan qaadi karaan. Wax kaloo waxaa jira haddana guud oo Soomaalida ka dhexeysa. Soomaalida dowladnimo ma rabaane goofay rabaan. Qofki inuu goofkiisa sheegto oo halakan anaa leh lahjadaa la isbedelaya waqooyi kasoo bilaabo waar meeshan anaa dambaaba Puntland Soomaali halakan anaa leh waxaa tagtaa maxaa la oranaya ilaa iyo gudub ilaa iyo waxaa tagtaa hiiraan tag meeshaan anaa leh kasii gudub xamar tag mahaan anaa leh ama mahaan unukaale whatever lahjadaha isbedelaya laakiin mentalityga is the same way. ولذلك يعني marka waxaan leeyahay war wixii aan kala leenahay idinkoo raalli ah tartiib aan u kala jiidan because qaranimo maba aaminsanin lahjada la isbedesho maahane Soomaalida waa same mentality. Marka tii rasmiga ahayd aan dowladnimo ku raadino nations awalba lisu keenaan ahayn Europeanka dembiyada galaan waxaa ka mid ah Afrikaanka waxay ku sheegaan tribes ama clans iyagana waxay isku sheegaan nations. It's the same way. Aniga nationaan ahayn confederation of tribes aan ugu sheegaan laakiin nationna waxaan ahayn kala duwan tii inaan dib ugu noqono oo miirsano oo qolo waxeeda samaysano oo hadhowtii confederate system ama aan samaysano waxa la yiraahdo maaragtay commonwealth system annagu sida majlisul khaliij oo kaleeta ah u baahannahay laakiin uma baahnin dowladnimo inay naga dhexeyso. That is my vision. That's why I don't want to be part of Somalia regardless. And I don't think that I am going to achieve what I meant to achieve when I am Marty, not part of Somalia. So أنا marka meesha u socdo saas waa sheekh waxa aniga habeen walba aan tashkiilay saas waa ku sugaynaa insha allahu in allaha yahdi man yashaa maa la soo hanuuntay oo hogaamiye aan noo noqotid oon kusoo dhaweyn doono oo safkaa kasoo qaybgeli doontid it's not far oo ku sugaynaa insha allah adagaa soo quusan doona laakiin waxaan ogahay safarkaa nagu dheereynaysaa keliya waa kusoo qanci doontaa Soomaali waxay isu tahay inaysan jirin laysku kabkabay historygana way ku qoran tahay simple as that. Qofka gacanta soo taagtaa soo qaato waa qaadan kartaa ustaad Dhagaxtuur. Thank you. Dhagaxtuur ma jooga miya? Hello. waa jawaabtay da mashquul maanaha maxaad tiri ismaaciilo Okay haddaad ii maqlay dhib ma lahan intii hore waa ku maqlaya laakiin ii wad ii soo no waxaan ku dhahay at the end of the day one day insha allah waa soo hanuuni doontaa waxaa kasoo qanci doontaa Soomaaliya dadka Soomaaliyeed hadalkaaga wax yaraa ka qaatay very interesting actually waxaa tiri Europeanka iyaga nations u arkay annagana waxay naga dhigaan tribes iyo wax noocaas marka su'aalaha ku weydiin lahaa clans marka su'aasha iga soo dhex xaway matalan wadamada hadda Scandinavian la isku yiraahdo dhan World War 1 ka hor ama xitaa World War 2 ka hor let's say on between haddaan taariikhdooda dib u raacno wadamada ah qaabkeeba u akaayeen ma waxay u akaayeen hadda matalan marka la yiraahdo Majerteni oo kale meel bay ahayd you know xukun gaara oo kind of daakhiliya iska ah oo dadka you know dadka ilaa Asia maaragtay la samaysa trade la samaysa noocaasi ahayd marka waxa leedahay Europeankuna saas oo kale ahaayeen laakiin inaga ina dulmiyeen may fiiri waxa la yiraahdo qofkii backgroundkayga oo kale anaga modern state waxa la yiraahdaa nolol dhiga moogta ama European state waxa la dhaho oo develop gareysmay dagaalkii labaad kadib moogta oo nidaamkan hadda adduunyada la ictiraafsan yahay oo maxay ahayto UNT iyo associationka laga tirsanaanayo oo recognitionka UNT ay bixisay waxaasi gadaal waa moogta laakiin waagii hore nationska ma jirin meel oo loo noqonayo reference ah oo dadka la xisaabtamayso adduunkana wuxuu ku macnaha maxaa la oranayay adduunka jungle law baa ka jira moogta gacantaada meeshay gaari kartay darsanaysa moogta dagaalkii labaad